bismillahir rahmanir rahim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa lagu eedeynayaa inuu ka goostay midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya sidoo kale waxa lagu eedeynayaa inuu yahay siyaasi rogrogasho badan oo dhan walba jirsada haddaba warkaasi maxaa ka jira warbixintan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona halkan ayaana ku soo koobi doona warbixin dhameystiran oo ku aadan Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya iminkana gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya hayeeshee intaan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka ofran ee gambalaalkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee farada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade firfircoonaantiisii dhalinyaranimo iyo ku soo beeganka xilli adag oo xar rasmi ah loo baahnaa ayaa Sheekh Axmed ka dhigtay shakhsi muuqda oo ka soo dhexdhalaalay siyaasadda Soomaaliya 15 sano ka hor taas oo suuro gelisay in uu majaraha u qabto dawlad midnimo qaran sanadkii 2009 inkastoo lagu ammaano in uu dib u soo nooleeyay qayb kamid ah hay'adaha dawliga soona celiyay kala dambeyn dawladeed oo aan qudheedu oo buurnayn inta badan degmooyinka caasimadda ka saaray dagaalamayaasha al-shabaab haddana waxa la rumaysan yahay in uu san fulin filashooyinkii muhiimka ahaa ee ummaddu sugaysay waxqabadkiisii iyo qaladaadkii uu galay intii uu xilka hayay qoraalo badan ayaa laga sameeyay waana tagto bogag togan iyo beejaj tabanba leh hayeeshee warbixintan waxa aanu ku dul istaagaynaa gabadha dhacleynta iyo isgadgadinta mowqifkiisa siyaasadeed ku dhawaad 5 sano ee la soo dhaafay labadii kal doorasho ee la soo dhaafay 2012 iyo 2017 Sheekh Axmed waxa looga adkaaday tartanka kursiga ugu sareeya ee dalka waxaana muddo xileedka dambe majaraha qabtay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo uu isagu soo geliyay siyaasadda tabayaaqadiisii 2010 mar kale Sheekh Axmed wuxuu hormuud u ahaa siyaasiyiin diidana soo laabashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaasi oo wareegii u dambeeyay doorashada 2017 codad badan siiyay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo si uu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya ninka dila abeese ubadkeeda deestay daajiye rabeesta dib u qoomameeyay runtii labadaasi go'an ee Sheekh Axmed ku garab istaagay Farmaajo waa la eeday oo gaar ahaan dadkiisa iyo deegaankiisa ayaa ka qoomameeyay yeelkeeda Sheekh Axmed kama mid noqon siyaasiyiin si degdeg ah ugu baraarugay fidnada oo la soo hig lahaa Farmaajo ee kaligii talisnimada iyo kursi isku dhajintu ugu horeyso wuxuuna muddo 2 sano ah si aan qarsoodi ahayn taageero ugu ahaa kooxda Farmaajo kadib beegsi gooni ah iyo bartilmaameed si gaar ah oo ka dhan ahaa isaga iyo siyaasiyiin kale Sheekh Shariif wuxuu ku dhaartay in haddii kooxda Farmaajo joojin waayaan gaboodfalada iyo shidada ay dalka ku hayaan la marsiin doono jidkii hogaamiye kooxeedyadii dalka ka jiray magaaladan Mooriyaan ayaa haysan jirtay waa la dagaalamay waa la bixiyay Ethiopian ayaa soo galay waa la bixiyay al-shabaab ayaa qabsaday waana laga saaray maka xoog badan yihiin wallahi thumma wallahi 3 jeer ayuu ku celceliyay haddaysan joojin waan bixinaynaa ayuu yiri dhamaadkii 2019 kadib markii Farmaajo iyo Fahad Yaasiin u diideen inuu u safro gobolka Hiiraan magaaladan Mooriyaan ay soo jirto Soomaa wala la dagaalamo wala baxsh musaabante Ethiopian soo galay maxaa lagu sameeyay wala bixi shabaab qabsaday maka xoog badan yihiin dadkan والله ثم والله والله ثم والله والله ثم والله هديسن جورجين وبحنينا artaasi oo hami iyo hididiilo gelisay dadka dhiban ee reer Muqdisho wuxuu Sheekh Axmed ka soo qaaday waxba kama jiraan
wuxuuna xilliyo kala duwan hor istaagay go'aano ay xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya oo uu gudoomiye u yahay qorsheeyeen in ay ku hor istaagaan sharci ku tumashada Farmaajo maadaama uu hore u maray kitaabo badan isagoo dano siyaasadeed leh. wuxuu rumaysan yahay in ku dhaarashada magaca leh iyadoo aan la fulin doonin ujeedka laga leeyahay in lagu gaaro mansab waase riyo maalmeed aan maangal ahayn. Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya wuxuu bilowgay sanadkan dhowr kulan oo qarsoodi ah la qaatay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kaasi oo ka xalmariyay gaboodfalo uu hore ugu geystay halka ay qadka taleefanka ku wada hadleen Farmaajo taas oo keentay in uu dalka ka baxo xilligii uu socday abaabulkii badbaado qaran. Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxay Sheekh Shariif Sheekh Axmed weydiisteen in uusan qayb ka noqon xubnaha mucaaradka ee awoodda ciidan kala hor imaanaya muddo kordhinta maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intoodana la qoray intii uu xilka hayay una badan yihiin beesha uu ka dhashay ee degan Shabeellada Dhexe iyo gobolka Banaadir. heshiiskaas wuxuu galay wuxuuna dadaal xoogan ku bixiyay in saraakiisha mudulood aysan qayb ka noqon abaabulkii badbaado qaran ha yeeshee waxaa ka awood batay Xaaji Muuse Suudi Yelxo oo door dahabi ah ka ciyaaray in dalka laga badbaadiyo muddo kordhintii sharci darada ahayd sida aan xogta ku helayno isla markaasina aanu ka soo xiganay mid ka mid ah taliyaashii hore ee Niza xilligaasi. Sheekh Shariif wuxuu dacwo ka dhana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame u gudbiyay wakiilada beesha caalamka ee xalana jooga isagoo ku eedeeyay in ay yihiin dagaal oogayaal soona jeediyay in loo aqoonsado qaswadayaal. warbixino hoose oo xilligaasi soo baxay waxa ay cadeynayeen in uu doonayay hirgelinta muddo kordhintii Abriil ha yeeshee uu dalka ku soo laabtay dabayaaqadii bishaas kadib markii caasimadu martigelisay kacdoonkii badbaadada qaranka. wuxuuna Sheekh Shariif mar kale qayb ka noqday shakhsiyaadkii gaagixiyay ee kifaaxii soo ifbaxay 24 November 2021 wuxuu iska bari yeelay go'aanada musharaxiinta kale wuxuuna taageeray bilowga doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilli inta badan xubnaha mucaaradka ay muujinayeen walaac ku aadan hanaanka boobka ah ee lagu daafuray doorashada. bilowgii bishii Oktoobar Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa si weyn loogu dhaleeceeyay baraha bulshada kadib markii uu banaanka u soo baxay war sheegaya in mucaaradka ka codsaday in ay doortaan hoggaan kale isla markaana uu isagu iska casilayo xilka gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta. Sheekh Shariif wuxuu ka mid yahay dhowr siyaasi oo aan ka hadlin shaqo karaacadeyntii eedeysan Fahad Yaasiin wuxuuna si aan looga baran oo si weyn kaga duwan shirarkiisii jaraa'id ee hore uga hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ku maqan gacanta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza waliba lagu eedeynayo dilkeeda agaasimihii hore ee Niza Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhawaan si buuxda u cadeeyay mowqifkiisa ku aadan hanaanka boobka waxayna sheegeen in ay ra'iisul wasaare Roble kala hadleen dardargelinta doorashada taas oo ka dhigan in ay ka madax banaan yihiin go'aanka ka soo baxay musharaxiinta ee ku aadan hakinta doorashada. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la xasuustaa xilligii uu ahaa gudoomiyihii guddiga fulinta golaha maxaakiimta inuu bilowgay 2007 isku dhiibay Kenya taas oo lagu tilmaamay khiyaano uu ku sameeyay golihii maxaakiimta. habdhaqanka Sheekh Shariif wuxuu ka tarjumayaa in uusan lahayn siyaasad sal fadhiisa leh iyo mabda adag waxaana muddo kadib lagu baraarugay midibada badan ee uu kula dhex jiro siyaasadda. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media ee aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay warbixinta muuqaalka laag inoo saar subscribe inoo saar channelka furaga maralkaasi durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid la cayna inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.